wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Sool ayaa halkan oo ah cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood maanta si rasmi ah uga daahfurtay tallaalka xanuunka COVID-19 oo markii ugu horeysay soo gaadhay gobolka Sool waxaana tallaalkani qaatay mas'uuliyiin ay ugu horeeyaan barasaabka gobolka Sool maayirka degmada Laascaanood saraakiisha ciidamada booliska iyo militariga iyo waliba asluubta waxaana munaasabadii lagu daahfurayay tallaalkani ka soo qayb galay shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool ee loo tababaray inay bulshada siiyaan tallaalka COVID-19 mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool ugu horeyntiina waxaa faahfaahin ka bixiyay tallaalkani isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool Dr. Maxamuud Xaaji Khalifa iyo mas'uuliyiin kale oo ka socotay wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool iyo wasaaradda caafimaadka ee heer qaran 27 Maarch waxaynu halkan u fadhinaa waynu saaka sameeynay furitaankii ama bilowgii tallaalka xanuunka coronavirus waxa runtii halkan fadhiya oo tababar uga socday labadii maalmood ee ugu dambeeyay shaqaalihii wasaaradda horumarinta caafimaadka oo sameynaya insha Allah hadii alla idmo tallaalka COVID-19 waxaynu saaka halkan ku tallaalnay madaxdii gobolka Sool tallaalkanina runtii muhiimadiisa ama faa'iidada uu inoo leeyahay bahda caafimaadku runtii wax fara badan bay ka garanaysaa bulshadeena ku dhaqan gobolka Sool iyo hareeraheedaba waxaynu u baahanahay sidii aynu si haqabtiran u gaarsiin lahayn tallaalkani waa tallaal qaaliya waa tallaal runtii kharash fara badan ku baxay tacab fara badanina ku baxay waxaan rabaa inaan halkan runtii tacsi uga diro dhakhaatiirtii ku geeriyootay iyagoo u adeegaya bulshada xalay waxaa dhintay Dr. Diiriye dhinkii kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Hargeysa iyo waxyaalaha research ku socdo tallaalkan waa tallaal markaa la soo hubiyay waa tallaal muhiim ah waa tallaal waxtar fiican u leh wax dhibaato oo uu leeyahay tallaalkan ma jirto dhinac kasta waa laga soo hubiyay marka waxaan anigu idinkula dardaarmi lahaa bal inaa xoojisaan dadka aad ku wacyigelisaan sidii ay tallaalka u qaadan lahaayeen sida maanta madaxdu u bilowday garaad jaamac garaad Ismaaciil maayirka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Taarwale iyo barasaabka gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire ayaa bulshada ugu baaqay inay ka faa'iideystaan tallaalka COVID-19 oo markii ugu horeysay la soo gaarsiiyay gobolka Sool inuu ognahay maanta irbadaasi qiimaha ay ka leedahay adduunka waa wax Ilaahay loogu xamdinaqo way in Allah intii ka soo shaqaysay in Allah intii ka hawlgashayna Ilaahay khayrkeeda ha siiyo keega waxaan u sheegaynaa inaanu irbadani ay dadka dantooda ay tahay haddaad reer gobolka Sool u qaadan weydaana idinka dantiina og laakiin waxa weeye inaan qaato waxa weeye shakhsi ahaan anigu aan ku qancinayn gudoomiyaha gobolka cid kale aan ku qancinayn aniga danteedu ay ku jirtaa baaqa halkaan ka direynaa aan uga diray dadweynaha ku nool guud ahaan magaalada Laascaanood iyo hareeraheedaba deegaamada ku hareeraysanba waxay tahay inay qaataan tallaalkaasi wax dhibo ma leh kolley laakiin muxuu ahaa Soomaalida iskaga dhalatay dacaayadii hadalka waxaan leenahay fursadda laga faa'iideysto imika waxa lagu tijaaminayaa dadka waaweyn baa la siinayaa waxaan ciidamada macallimiinta waa meelahay u dhimatay muxuu ahaa xanuunka degdeg looga qaadi karo mudanayaal iyo marweyn baa waxay tasaaka waa maalin weyn adduunka waa ognahay oo qayla ka taagan qaylada adduunka taagan ee halbowliyaashii adduunka oo dhan dhaawac u geysatay dunidu waa human resource waa bini aadan baa Ilaahay dunidan u abuuray anagoo saaka marxaati waxaan ka nahay halkaas hortiina ku qaadanay tallaalkaas cid kastoo ka soo shaqeysay iyo cid kastoo inoo keentay waa ku maadsantay wasaaradda caafimaadku ay ugu horeyso waa uga mahadcelinaa runtii insha Allah inta hadhana waxaan doonaynaa sida loo sheegay maadaama tallaalku yar yahay targetkaas loo sameeyay sharaxaad wuxuu lahaa iyo wax kasta xalimo xasan bayna si sawgaaso oo iyo waxa tallaalka marka la qaato waqtiga iyo dhibaatooyinka iyo waxa la kulmayo iyo waxa aad arki doontidba iyo wax walba intaas ay noogu dhan tahay inaga mas'uuliyadeena waxa weeye idinku maadaama shaqaale caafimaadka tihiin hawsha la idin igmaday inaad sideeda u fulisaan
oo aynu ka dagaalano sidii aynu u heli lahayn caafimaad iyo badqab wanaagsan insha Allah ilaahay waana de kulli xanuunka bixiya waxaan leeyahay wariyaashana si weyn u soo eegayeen iyagana waxaan leeyahay malaha dadka hadashay meel la isugu yimaadee targetka ugu dareeheeday oo ku jirtaan idinkuna oo qaadan doontaan insha Allah. Talaalkan COVID-19 ayaa noqonaya markii ugu horeysay uu soo gaadho gobolka Sool waxaana uu maalmaha soo socda gaadhi doonaa deegaanada iyo degmooyinka gobolka Sool. Liibaan Qaran, warbaahinta qaranka Somaliland, Laascaanood.